waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan kala soo qayb galo daahfurkan aan ku daahfurayno darisaynta waxaan u dooranay maxaan ku idhaahdaa waa beri waxaan ognahay in hawl badan oo wanaagsan laga qabtay hawsha darisaynta oo macnaheedu yahay difaac dariskaaga daryeel dariskaaga saas maaha inaad dariskaaga difaacato daryeesho oo ka warqabto dariskaaga macnaheedu waxay tahay waa beri hore waay waxaan ii sheegayaa waxaan runtii ay soo xasuuseen intaan soo maraayay dowlad goboleedka Puntland iyo dowlad goboleedka Galmudug dadkaas wanaagsan siday noo soo dhaweeyeen yaan arkaa oo kale inay noo soo dhaweeyaan marka labaadna inaad fahamsan tihiin wax dowladnimo tahay inaad fahamsan tihiin dowladnimo macnaheedu waxay tahay in qof walba u fahmaa loo baahan yahay dowladnimo waa shacab dowlad waa idinkaa keenay dowlad ma jiri karto la'aantiin dowladdu iyo annagu waxaan nahay shaqaale waxaan nahay adeegayaal aniga ugu horreeyo mudane yariisow iyo ku-xigeenadiisa kulligeen waxaan nahay dad idiin shaqeeya idinka oo amarkiina ku shaqeeya oo idinkiina ka yimid awooddeeda inaad lahataan oo rabaa marka inaad ku ilaashataan dowladnimadiina awooddeedana waa leedihiin waxaa ugu horreeya oo loo baahan yahay inaad ku ilaashataan inaad idinka qof walba oo halkan fadhiya iyo qof walba oo waabari iyo guud ahaan magaalada muqdisho degan inaad isdaryeeshaan inaad iska warqabtaan inaad isdifaacdaan macnaheedu waxay tahay waxaad taageerteen oo aad taageerteen dowladdiina dowladdu waxa weeye waa ilmo idinkaa dhasheen oo kale wey haddii hooyadii aabbuhu ay dayacaan ilmahaas see noqonaya haddii aad dowladda dayacdaanna dowladdu waa qaab dhammaanaysaa haddii laakiin dowladda ilaashataan oo aad xaafadiina nadiifisataan oo cashuuraha aad bixisaan oo amnigiina aad ka shaqaysataan oo qof alla qofkii dhibaato xaafadda ku ah aad u soo sheegtaan booliiska ama nabad sugidda u soo sheegtaan macnaheedu xaafaddaas waxay noqonaysaa xaafad wanaagsan oo nabada haddii laakiin kii xumaa la qarsado oo kii xumaa guryaha lagu haysto waxaa imaanaysa kuwii xumaa inay xoog bataan kuwa xun laguma dhex noolaan karaan waxaan rabnaa inaan xamar nabad ka yeelno xamarna nabad waxay ku noqonaysaa iyadoo la xoojiyo darisaynta iyo iyadoo la xoojiyo oo raggaas odayaasha ah oo difaaca dariska ah halkaas fadhiya iyo idinkaba aad ka wada shaqaysaan dadka xun oo lagu dhex jira oo dhibwadayaasha oo qaswadayaasha oo u shaqeeya cadowga oo shabaabku ay kow ka yihiin inaan qabanno marna inaynan ka baqin haddaan isugu tagna kulligeen oo qof walba qofka kale uu garab istaago oo darisaynta aan xoojinno waxaan ii sheegaynaa ma lagu dhex noolaan karaan wallaahi way ka cararayaan anaa ii sheegaayo idinka iyo dowladdu hadday wada shaqeeyaan marka shacabka iyo xukuumad iyo dowladdu hadday wada shaqeeyaan waxaan aaminsanahay magaalada muqdisho waxay noqonaysaa siday ahaan jirtay magaalada ugu nabadgelyo badan adduunka annagana dowladdeedii waa nahay waxaa naga haray oo keliya waxaa naga dhiman oo keliya inaan gacmaha isqabsanno waxaa naga haray oo keliya inaan cadowgeena meel uga soo wadjeesanno waxaa haray oo keliya dadka soomaaliyeed inay walaaloobaan keliyaa haray waxaa haray inay is-aamintaan intaas haddaan helno waxaan hubaa oo xaqiiqa ah soomaaliya xamar bay ka bilaabanaysaa oo caasimaddii ah madaxii ah haddii ay xamar hagaagto dalka intiisa kale waa hagaagaya insha allah